ninkii mujrimka ahaayo gabdhihii Soomaaliyeed oo saddexda ahaa hooyadii iyo gabadhay dhashay iyo gabadhii ay habaryarta u ahayd ninkii dilay oo sida foosha xun u dilay oo islaamnimada dhaafsan Soomaalinimada baalmarsan insaaninimada ka baxsan amaha amniga ragga jooga ay soo gaarsiinayaan ninkii gacanta in lagu dhigay gacanta lagu hayo oo warbixintii ay socoto ninkii in gacanta lagu dhigay isagoo garka xirtay shaarba reebtay caynka ah 10 daqiiqo ka horna waxaan la hadlayay meesha lagu hayo hadda bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma'ashara al-muslimin ilaahay baa mahadsan mudano wanaagsan mutaystay in lagu mahadiyo la raali gasho اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار وحان قلبت جعليستي يضو صلاة عصرنا لو أدمي إن آن أمد صوماليات ومسلمين تأه واربحين كسابسا نينكي مجرم كأهايو قبلها نقلعي gabdhihii Soomaaliyeed oo saddexda ahaa hooyadii iyo gabadhay dhashay iyo gabadhii ay habaryarta u ahayd ninkii dilay oo sida foosha xun u dilay oo islaamnimada dhaafsan Soomaalinimada baalmarsan insaaninimada ka baxsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa waxa isoo gaaraya oo laamaha amniga ragga jooga oo Soomaali iyo dad kaleba ah ay soo gaarsiinayaan ninkii gacanta in lagu dhigay oo gacanta lagu hayo oo warbixintii ay socoto sawirada la ii soo diray waxay i tusayaan in stationada qaarkood mid ka mid ah sawir laga soo qaaday intii baaridu ay socotay iyo meelihii maxay ahayd loogu daba jiray in lagu qabto sawiradii laga soo qaaday ilaa iyo goor dhaweyd ninkii in gacanta lagu dhigay isagoo garka xirtay shaarba reebtay caynka ah 10 daqiiqo ka horna waxaan la hadlayay meesha lagu hayo hadda wixii ka soo kordhaana oo si maxay ahayd xaqaa'iqdu wuxuu xoogsatana waa idin la soo wadaagaynaa insha Allah tabaaraka wa ta'ala waxaan u mahad celinayaa إلهي سبحانه وتعالى ودقر قبيه سو قبتي وقعنت كودغي وإلهي سبحانه وتعالى ما عد بلارين هنغا قاده ظلمي دعي ظاهريي ظالمكي جيستي وحان سيدو كله ومهد علينا يا سومالي ودن ميل كستي جوجتو arrinka sida ay ooga dhigiyeen oo ay maxay ahay uga falceliyeen runtii waxaan horay ooga baranay ma ahayn Soomaali ilaahay hamidayo Allah isku duubo damiir xooggan bay muujiyeen waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa ugu shukrinaya Isli Business Community oo hawshan bilowgeediiba xoog ballaaran gelisay awood xooggan gelisay oo ka dambeysay maxay ahayd banaanbixii ballaara waxaan sidoo kale oo mahad celinayaa mudane Yuusuf Xasan xildhibaanka Kamkunji oo isaguna runtii kaalin xoogan ka qaatay banaanbixii mudaharaadkii oo noo keenay xataa senatarkii iyo siyaasiyiintii wadanka si xoogan ay uga hadleen sidoo kale waxaan ugu mahad celinayaa suuqleydii suuqa qaaxirtay oo yaboohii iyo maxay ahaydayay hadalkii ka soo baxay Isli Business Community iyo siyaasiyiinta Yuusuf Xasan ay yiraahdeen suuqa alla xiro baritan alla isu soo baxo u dhigan nuglaaday suuqa qeexray suuqleyda Allah idin barakeeyo sidoo kale waxaan uga mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed oo aan u kala harin saqiir iyo kabiir rag iyo dumar caruur iyo ciroole culumo iyo caamo ganacsato iyo garableyda sidoo kale waxaan u mahad celinayaa banaanbixii xoogana oo wadada koowaad
maxamed yuusuf xaaji loogu magac daray camiray oo ilaa iyo baytulmaal madaari agteeda ilaa iyo ron aboutka buuxiyey oo maxay ahaydayay muujiyey cududa soomaaliyeed iyo arrinkaa foosha xun inay ka dhiidhiyaan dhawaaqaasina uu gaaray laamaha amniga waddanka inkastoo wax yaroo maxay ahayday iskoris ay meelaha marmarayeen laakiin hawshii dhacday iskoris meel maray iyo wadaad meel ka hadlay iyo maxay ahayday qolo si kale u hadashay waxba ka dhibi mayso miraheedii baanu maanta insha allahu tabaaraka watacaala ka mahad celinaynaa waxaan u mahad celinayaa si gaara madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya oo daraato si xooggan ooga hadlay dilkii gabdhaha iyaga loo geystay oo weliba si gaara ula hadlay laamaha amnigoo dhan oo yiri arrinkaa ku gudbi maayo maxay ahaydayay si qabo yuusan u gudbin waa in cadaaladda la hor keena 2 casho kadib waxaana soo gaaraysa laamaha amnigu inay ku guulaysteen hawshii maxay ahaydoo madaxweynuhu u diray hawshoodana ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku guuleeyo ragga madaxda u ah oo muslim iyo gaalba leh oo hawsha ka dambeeya soo qabtay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa rag baa jira aanan ka daba harin maalintii hawshaa la bilaabay ilaa iyo xalay 8 saac ay la soo xiriirayay ilaa xalay 8 saac baan hadallo isdhaafsanaynay halkaasuu marayaa burhaanuu maray halkaanuu maray section 3 buu qaatay gaariga noocaasuu wataa ragga noocaasa oo aanan seexan oo aanan fariisan oo aanan nasan oo aanan harsan ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiina allah badiyo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa qodobka 8aad ah dad badan oo Soomaaliyeed baa duceeyay oo yiri ilaahu dhagar qabaha soo qabo shalay baa ugu dambeysay oo uu Sheekh Cajiib ka duceeyay iskuulka Don Bosco markaanu soo xireynay oo si xooggan ugu duceeyay in ninka gacanta lagu soo dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina tusay maanta inay laamaha amnigu naleeyihiin ninkii gacanta lagu soo dhigay hawsha waxaa xoogeeda qaatay Isli business community iyo banaanbixi iyo mudaaharaadkii iyo maxay ahaydayay muraaharaadkii meesha ka dhacay waa ka keentay inuu madaxweynuhu ka hadlo weligeed ma dhicin hawl Soomaaliyeed oo madaxweynuhu u baxo oo ka hadlo wallahu a'lam wabillahi tawfiiq